iyadoo dhammaan dunida islaamka saaka laga tugo salaada ciidul axda ayaa waxa magaalada buuhooda laga oogay salaada ciidul axda. salaada ciidul axda ayaa waxa lagu kortay laba goobood oo kala ah koronka weyn ee magaalada buuhooda iyo masaajidka rawda ee magaalada buuhooda. dhammaan dadweynaha ku dhaqan magaalada buuhooda ayaa halka ku kortay salaada ciidul axda. dhammaan shacabweynaha magaalada buuhooda ayaa halka ku tugan laba ragcadood oo salaada axda. bulshada ku tugatay salaada axda koronka magaalada buuhooda ayaa waxa kamid ah muslimiinta Puntland oo ugu horeeyay gudoomiyaha gobolka Cayn Cabdifataax Ciise Maxamed. ugu dambeynta ayaa halka waxa dadku isugu hambalyeeyay farxadda ciid. gudoomiyaha gobolka Cayn Cabdifataax Ciise Rawal ayaa halka wuxuu hambaliyo iyo ducaa u diray dhammaan ummadda Soomaaliyeed. qaar kamid ah culimada iyo dhalinyarada magaalada buuhooda ayaa halka hambaliyo iyo ducaa waxay u diray dhammaan ummadda islaamka meel kasta ay ku tukatay. maanta waa maalin weyn, waa maalin ciid ah. ummadda islaamka meel walba joogta waxaan leeyahay hambaliyo kullu caam wa antum bi khayr. ciid wanaagsan shacabka Soomaaliyeed, kuwa Puntland, shacabka gobolka Cayn gaar ahaan reer buuhooda. ciideeda Ilaahay bashbashar iyo barwaaqo inagu gaarsiiyo meel walba joogtaan. waxaan ka salaamayaa oo aan ciid caafiyo u dirayaa madaxweynaha dowladda Puntland, madaxweynaha ku-xigeenka iyo dhammaan gobolka dowladda Puntland. ciid mubaarak. waxaan leeyahay ciideeda Ilaahay bashbashar iyo barwaaqo inagu gaarsiiyo. ummadda islaamka ah buuhooda iyo gobolka Cayn waxaan rajaynayaa barwaaqo iyo bashbash. Ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu abaaraha naga soo jabiyo isaga caadil ah. Ilaahay waxaan ka baryaynaa abaaraha naga soo jabiyo shacabka Soomaaliyeed, Puntland iyo gobolka Cayn waxaan leenahay ciid mubaarak dhammaantiin. Ilaahay inoo dambi dhaafo. ilaa xawiya aadan intaynu ka soo jeednay ehelkeennii iyo qaraabadeennii iyo dadkeennii iyo meeshaynu ka nimid baa wixii islaami shahaatay ummaddii nebi maxameda waxaan rabbi u shiriig yeelin baa allaha u naxariisto, allaha caafiyo, wixii bukana allaha inoo caafiyo. fagaaraha weyn ee salaada lagu tukada oo musallaha weyn ee magaalada buuhoodle oo runtii maanta si aad iyo aad looga ciiday ciidan weyn ee ciidul udxiya. waa maalmo waxa weeye aad iyo aad u weyn. ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu talagalay ummadda islaamka ah in naarta laga xoreeyay, inay ajar badan tabcadaan, inay waxa weeye cibaado badan sameeyaan. inta xajka ka hadhay inay xajkiibay ummadda islaamka aaday. ilaahay ha ka aqbalo, nabadna ha inoogu soo celiyo. waxaanu tahniyadda u diraynaa ummadda islaamka meelay joogtaba, gaar ahaan ummadweynta Soomaaliyeed daafaha adduunka meel alla meelay ka joogto. waxaan leenahay acmaasha marka koobaad ilaahayna waafajiyo, marka labaadna ilaahay subxaanahu wa tacaala ha inaga aqbalo. taqabbal allahu minna wa minkum saalix alacmaal wa kullu caam wa antum bialfi khayr. si gaara reer buuhoodle oo maanta runtii muuqaal iyo mandar aad u fiican uu ka muuqdo. kullu caam wa antum bil khayr. waxaan halkan hambaliyo iyo tahniyad ciid ugu dirayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan ummadda gobolka Cayn. waxaan leeyahay ciid mubaarak kullu caam wa antum bil khayr. hambaliyo ummadda muslimiinta meel kasta ay joogto gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed. waxaan leeyahay kullu caam wa antum bil khayr. taqabbal allahu minna wa minkum saalix alacmaal. waxaan halkan uga dirayaa hambaliyo faamiliga aan ka soo jeedo ee reer Xuseen Aadan iyo faamiliga hooyada ka soo jeedo Xuseen Xaaji Cali ayaa waxaan leeyahay Ilaahay subxaanahu wa tacaala ciidahooda iyo kuwii ka dambeeyay Ilaahay caafimaad ha inagu gaarsiiyo. waa maalin weyn, waa yawm al-hajj al-akbar. waa u tahaniyadeenna maanta dadka muslimiinta meel ay joogaanba. taqabbal allahu minna wa minkum saalix al-acmaal wa kullu caam wa antum bi khayr. ciidukum ciid saciid insha Allah tacaala. ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaynaa ciideeda inuu gaarsiiyo nabadgelyo iyo barwaaqo iyo caafimaad iyo diin iyo shareeco intaaba ilaahay subxaanahu wa tacaala hayna waafajiyo. islaamku waxaan leenahay kullu caam wa antum bikhair. waxaanu joognaa garoonkii buuhoodle oo maanta lagaga ciiday si weyn. gobolka buuhoodle oo ah gobolada ugu waaweyn dalka ayaanu maanta suucan uga ciidnay. waxaan leenahay dhammaan shacabka Soomaaliyeed iyo shacabka reer buuhoodle iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba joogto iyo ummadda islaamkaba kullu caam wa antum bikhair. ciid mubaarak, ciidul adha mubaarak. dhammaan muslimiinta ku nool dunida daafeeda waxaan ka muuqdaa magaalada buuhoodle bartan taagana garoonka weyn oo ciid mubaarak bana dhammaan kullu caam wa antum bikhair. taqabbal allahu minna wa minkum saalix alacmaal. magacaygu Cabdisaaq Maxamuud Maxamed. waxaan salaamayaa awalan hooyaday, aabbahay, qaraabadayda, ehelka, asxaabtayda, macallimiintayda, saaxiibaday, sidoo kale islaamku meel jooga waan salaamayaa. ciid mubaarak si fiican baan u weynay magaalada buuhoodle garoonka weyn waxaan taagnahay ma sha Allah meel kasto ay ku sugan tahay adduunka iyo daafiisa. maanta maalin ciid weeye, maalin farxadeed, waa maalin wanaagsan, waa maalin yawmul khayr, waa maalin ummadda isku aragtay garoonka buuhoodle. taqabbal allahu minna wa minkum saalix alacmaal.
waxaan halkan garoonka ciidda ee Buuhoodle uga diraynaa tahniyad dhammaan shucuubta muslimiinta ah si gaar ah shacabweynaha Soomaaliyeed waxaan leenahay acmaashan soo samaynay ilaahay subxaanahu wa tacaala ha naga aqbalo daafaha caalamka iyo meel kasta oo joogtaanba ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaynaa kuwii acmaashii xujaajta iyo khayrul xaajkaba in ilaahay subxaanahu wa tacaala inaga aqbalo waxaan leenahay ciid mubaarak baan Najaa Maxamuud Salaad warbaahinta Daljir magaalada Buuhoodle ma ogtahay macmiil in bangiga Salaam Banki uu gaar leeyahay adigoo aan tagin xarumaha Salaam Banki inaad lacag dhigan kartid bangiga haddaba macmiil si aad akoonkaaga lacag u dhigatid falna raac tilmaamaha soo socda garaac xidig 886 xidig akoonkaaga bangiga Salaam xidig lacagta aad dirayso kadibna afar gees ku qor macluumaadkaaga faahfaahinta lacagta aad dhigaysid si aad u hesho tixraaca geli lambar sireedkaaga sahalka si aad u dhigatid lacagta wow macmiil waad ku guulaysatay inaad dhigato lacag akoonkaaga ku raaxayso oo isticmaal adeegyada Salaam Bank